dadka laabtoodu caafimaad qabta nebi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa jannada sufuufta hore inay ka mid yihiin. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy kooxda ugu horeysa ee jannada gelaysa sida leylatulbadriga 14aad dayaxoo ah ayay u galaan. kooxda ku xigtaa buu nebigu yidhi xidiga ugu iftiinka badan le sidiisoo kale iyagoo u muuqda ayay galaan. kuwan calaamadoodu waa maxay? wuxuu nebigu ku sifeeyey quluubuhum calaa qalbi rajulin waaxidin la ikhtilaafa baynahum walaa tabaaqud. kuwan qalbiyadoodu waa sidii nin quro baa ilaahay leeyay oo wax khilaafa iyo wax isu cadhays iyo kuma jiraan. idan waa dad laabfayow baa laleeyahay kuwan jannada xagga hore ka gelayaa buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. haddaba inaad laabfayoobaataa adiga caafimaad qabbay kuu tahay. waxaad seexanaysaa adoo miyir qabo caafimaad qabo wax dhibi ku hay. adoo ciil qaba haddaad tidhaahda seexana gamiba maysid 9 jeer baad hurdada ka toosaysa iyadoo kolba maskaxdaadu ay soo celinayso warkutaalooyinka iyo wixii dhibku haysatay. waxaad ka badbaadaysaa colaadaha iyo dhibtoo dhan. walidaalik qur-aanka u fiirso ambiyada ilaahay markuu sifaynayo waxyaabaha lagu sifeeyey ugu waaweyn waxaa ka mida inay dad laabtoodu nadiif ahayd. yani waa min sifaat alambiyaa. haddaynu nebi ibraahim ku tilmaamnay id jaa rabbahu biqalbin saliim, nebi maxamedna anas ibnu malik xadiidku warinaya waa kale man taqama linafsihi, weligii ma aargoosan weligii ma aargudan baa la yidhi nebi maxamed. caasha waxay ku tidhi ridwaan ullaahi calayha wa ana biha, maalin uxud kaaga dhib badan miyaad aragtay ilaahay rasuulkiisiiyo? dabeetana wuxuu yihi waxaan tolkaa kala kulmay malayn maysi. markii layga saaray maka ee aan tegay daa'if ee haddana wax magaratada laygu diray dhagaxa laygaga soo saaray waan socday buu nebigu yihi ilaa iyo qarnu thacaalib meel la yidhahda markaan marayay baan baraarugay. lama fiq buu nebigu tilmaamay. yani qofku markay dhibto ka badato waa iska socday unbuu nebigu leeyahy wuxuun baan kala gartay anigoo maraya maxay meel la yidhaahdo qarnu thacaalib markaan marayay. nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa loo geystay ayaa jibriil u dhawaaqay. dabeetana wuxuu jibriil ku leeyay in allaha qad samica qowla qowmika wamaa raddu calayk. ilaahay waa maqlay kolkaa waxay kugula hadleen iyo waxay kuugu jawaabeen. rabbina wuxuu kuu soo diray malagii buuraha maanta inaad amarto ee waxaad doonta amar. malakuljibaal wuxuu yihi reer maka labada buurooda hareeree ka xigaan kor u qaadaya dushaan ka saaraya haddaad adigu amarto. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markiina waa tii nebi maxamed tuntay ee magaalada uuga baxay. gaala hadday ku disho malag lagu soo diray maxaad yeeli lahay? lahu midha ka reebin soo ma hadle. nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo gaala ah oo magaalada ka saaray oo dhibtaas qabsatay oo kuwii kale soo eriyeen ayuu wuxuu leeyahy bal arju an yukhrij allahu min aslaabihi man yacbud allaha waxdahu walaa yushriku bihi shay. maya ilaahay baan ka rajo qabaa inuu dhabaradooda iga soo saaro kuwa ilaahay keligii caabudo towxiidsada waan cidna ugu sharikiye. amal kaasuu qabaa. mustaqbal madoobi uma muuqdo inkastoo la diiday qalbigiisuna ma buko.